munaasabad ay si habsami loo soo agaasimeen maamulka iyo mas'uuliyiinta macadka American Institute ayaa habeennimadii xalay ka qabsoontay hotel race ee magaalada Boorama. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay xogayaha gobolka Awdal iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan waalidiin ardayda qalin jabinaysay. Munaasabadaasi ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay maamulka macadkaasi ardaydana dhiirigeliyay ayaa waxa uu yiri waxaa ka baxa bareefadkan sida caadada ah bisha Abriil laba qaybood inkastoo maanta qaybtii saddexaad oo caafimaadka laga maqan tahay waxaa sanadka ka baxa saddex qaybood baan jirin qaybtii caafimaadka sanadka kuma jirto dadweynaha dadaalayay waxaa la doonayaa wixii la baray inaad ka mar dhalisaan oo la arko oo dadka kale marka dhigtaan aad si cad uga dhex muuqataan. sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay isla markaana hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah waalidiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaana yiraahdeen qolkan quruxda badan waqtigan joogno idinkoo ka qalin jibinaya maadooyinka waqtiga silsiladeed noloshaydu soo maray qaybaheedii koowaad barnaamijkan wuxuu ka mid yahay qaybaha ugu muhiimsan ee wasaaradda waxbarashada dhalinyarta waxay ka mid yihiin qodobada maamulka iyo waxbarashada dugsigani qaybaha ugu dhaqaaqa badan wasaaradda kale waxaa iyaguna halkaasi hadla dhiirigelin ardayda qalin jabinaysa u soo jeediyay macallimiinta wax ka dhigaysa dugsigaas iyo welibana sidoo kale qaar ka mid ah marti sharafta midaawiiftiima waxa kale oo idin rajeynaya ardayay waxa kale oo ku dardaaraya inaad sii wadataan luqadda Ingiriisiga maxaa yeelay luqadda ma aha mid dhamaata qalin jabinta kadib waa inaad go'aansataa meel kale aad ka sii wadi doonto waxaad English bay wax ku qorataa qaado oo hooyo baro si aad wax u akhrisato albaabadu kuugu furmaan waxaan guddidu maanta kilib bay noqotay oo gurigaaga dhexdiisa joogtaa oo wax walba cilmiyaad ku baran kartaa ee kombiyuutarka baro kadibna wax baro oo waxbarashada ka sii wad luqadaha maanta dadka adduunyada ku nool isku fahmaan kuwa xagga hore kaga jira iyo teknoolajiyada marka luqadka xagga hore ku jira ee muhiimka u ah qofka inuu dad kale oo aan dadkiisa ahayn la xiriiro ama shaqooyin deegaankiisa meel ka duwan inuu ka shaqeeyo waxa kow ka ah luqadaha carabiga ingiriiska faransiiska iyo chinese-ka ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi soo afmeeray xogayaha gobolka Awdal Mustafa Duudu waxaana ardayda ku dhiirigeliyay inay hore u sii wadaan waxbarashadooda ayna tahay furay ay waxbarashada ka galayeen caawa waxay hooyo ay xaq fadhidaa iyadoo oo lagu siinayo shahaadadii labada sanadood ee Ingiriiska ama kombiyuutarka dhammaan waxaan mahadnaqayaa ardayda halka fadhida waayo waalidkooda bay ka farxiyeen ana ugu mahadnaqayaa waalidka maadaama ay awlaadooda wax bareen isku soo wada duubo ardaydani qalin jabinaysa ayaa ugu dambeyntii waxay maamulka iyo mas'uuliyiinta macadku guddoonsiiyeen shahaadooyinkii ay mutaysteen waa Shucayb Maxamed Kaan Shucayb Gees iyo Ayaanle Maxamed Bulsha TV magaalada Boorama.